السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دمانتين داوديال ميل كسو ضافا عالم كاد كجوبتان halkani waa TV-ga caalamiga STV xarunta saddexaad ee magaalada Jigjiga akhyaari waxa la soo gaaray hadii aan soo gudbin jirnay war wixii naga soo gaaray deegaanka iyo dalka gudihiisa waxaana si toos ah idin socodsiin doona aniga ah Axmed Ibrahim Axmed waxaana kamid ah qodobada Badrkron dhalinyarada ka socotay dalka Soomaaliya ee goboleedka Igaad uga hayay tababar magaalada Jigjiga ayaa loo soo jeediyay sooyaalkii taariikheed ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya xafiiska horumarinta qareedka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cirriga ka hirgeliyay degmada Goltama ee gobolka Faafan qodobada kale ee daawadayaal waqti xaadirka naga soo gaaray dalka gudihiisa waxa ugu darkaroon xafiiska caafimaadka ee magaalada Addis Ababa ayaa wada dadaalo lagu xakameynayo cudurrada ka dhasha nadaafad darrada qodobadaas ayaa ahay daawadayaal waqti xaadirkan qodobada ugu darkaroonay war wixii naga soo gaaray deegaanka iyo dalka gudihiisa iminkana u diyaar garooba qodobadan iyo koob kale oo dhameystiran faahfaahintooda وهاجاك داوديال كلنتي وعنا وناكسن مركله إمكاننا واحد كسر دواتان قضبة أو دمستيران دلنا يرد كسر دلك الصومالية أوروبريت كإيجاد وهي تابر مجال ديتشيجا أي لوسو تشيدي سويال كتاريخ إديجان كصومالية إثيوبيا فلا دوركني يوريه محمد dhalinyaradii laga soo kala xulay maamul goboleedyada uu ka kooban yahay dalka Soomaaliya ee uu urur goboleedka Igaad magaalada Jigjiga ugu hayay tababarka ku saabsan koortaga marin habaabinta iyo kobcinta shaqo abuurka dhalinyaradan oo la siinayay casharo la xiriira la dagaalanka fikradaha xagjirnimada iyo sidii looga gaashaaman lahaa fikradaha cidhiidhiyoon ee marin habaabin kara dhalinyarada ayaa waxaa sidoo kale loo soo jeediyay dhalinyaradani sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray deegaanka Soomaalida Itoobiya siyaabihii iyo xeeladihii siyaasadeed lagaga soo gudbay marxaladihii uu ku soo maray si ay uga qaataan way aragnimo ugu noqoto tub iyo wadiiqo ay u maraan sidii ay ula dagaalami lahaayeen dhibaatooyinka nabadiidka iyo xagjirnimada iyadoo uu hoggaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Ibrahim Maxamuud Mubarak uu dhalinyaradan reer Soomaaliya u soo jeediyay shaqooyinkii ku dayashada mudnaa ee uu deegaanka Soomaalida Itoobiya ku najaxay ee ay ka mid ka ahaayeen jabinta aragtiyaha cidhiidhiyoon ka qaybgelinta dumarka dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada xiriirka dadweynaha iyo ka go'naanshaha wadaniyadeed ee ciidamada deegaanka oo kaashanaya shacabka hoggaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Ibrahim Maxamuud Mubarak ayaa sheegay in warbixintan ee dhalinyaradan uu noqon doonto gashi ay kula dagaalamaan fikradaha xagjirnimada sooyaalkii taariikheed ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya iyo nabadgelyada haatan lagu naaloonaya sida ay ku dhalatay iyo xaaladda guud ee magaranaysa hadda deegaanka ka jirta iyo magaranaysa package-ka dhalinyarada iyo shaqo abuurka dhalinyarta loo abuuray iyo magaranaysa nidaamka loo daraajgareeyay dhalinyarta uga qayb qaateen nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban iyo sareynta sharciga iyo cadaaladda iyo horumarkan xawliga aan ku soconno nidaamka aan ku gaadhnay in halgan badan iyo dhiig badan iyo nafuris badan ay ku timid dhankooda dhalinyaradan laga soo kala xulay maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa sheegay in muddada ay seminaarkan ku jireen ay ka faa'iideen waxyaabo badan oo wax ka tari doona si adkeynta nabadgelyada iyo la dagaalanka xagjirnimada iyagoo dhanka kalena cadeeyay inay la dhaceen amniga buuxa ee ku arkeen muddada ay ku sugnaayeen magaalada Jigjiga iyo soo dhaweynta diiran ee ay kala kulmeen deegaanka Soomaalida Itoobiya xaqiiqatan aniga dhowr shay baan ka faa'iidnay marka hore ugu muhiimsan tahay marka hore inaan horto aan ogaano dawladda deegaanka horumarka ka socdo waxaan la kulanay madax badan oo madaxweyne ku-xigeenku ka mid yahay iyo hoggaanka mataqaana ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada waxaan arkaynaa maanta waxay soo mareen dawladda deegaanka iyo siday mataqaana nabadiidkii oo la dagaalameen iyo waxyaalihii mataqaana ay heerarkii kala duwan ay soo mareen iyo hadda maalinta ay taagan yihiin iyo ururada dhalinyarada dalka ka jiro siday oo la dhaqmaan iyo awoodda ay ku leeyihiin dalka midda ugu muhiimsan waa taas horta inuu qofka dhalinyarada ogaado dalka kale waxa ka jira dhalinyaradu siday oo la dhaqmaan mataqaana dawladda ka jirta dalkaasi taas oo midda noogu muhiimsanayd tan labaad aan fahanay waxay tahay horta xaq jir muxuu yaana xaq jir su'aasha ugu muhiimsan baa taas dadka qaar waxay haystaan xaq jir markii la dhaho inuu qof muslima kaliya xaq jirku muslim kalima waa qof aaminsan fikrad khaldan sharaf fiican oo aan uga hadlayna ajendayaashii uu shirka ku qusay aan heli doono iyagana waa helna waxay ahayd faa'iido fiican bay ahayd waxaan u aqaanaa Jigjiga iyo guud ahaan meel kasto dadka Soomaaliyeed deegaan ismaamulka inay yihiin dad si qurux badan noo soo dhaweeyay wixii aan ka filanayno wax ka badan baa iyana helnay taana waxay ahayd waxyaabihii faa'iidada seminaarka uu keenay
xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ceel riiga ka hirgeliyay degmada Goljono ee gobolka Faafaynta warkana waxa inoo soo diyaariyay wariye Cabdi Cumar. xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha oo ka duulaya hirgelinta qorshayaasha xukuumaddu ay diiradda ku saarayso dhinaca biyaha ayaa waxa uu wadaa tallaabooyin uu ku dardargelinayo gaarsiinta bulshada biyaha nadiifta waxaana xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu ceeriga ka hirgeliyay degmada Goljono oo ahaan jirtay goob oomana ah isla markaana 4 ilaa 5 jeer daraasaad laga sameeyay oo dhinaca biyaha aan lagu guuleysan balse waqti xaadirkan xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu ku guuleystay in ceeriga xafiisku ka hirgeliyo degmada Goljono oo soo tuuraya ilbidhiqsigiiba 8 litir dherarkiisuna uu dhan yahay 172 mitir biyihiisuna ay yihiin biyo aad u macaan oo waqti xaadirkan dadkii adduunyaduba si reereyn leh ay uga faa'iideysanayaan biyaha ceelkan xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu uu tijaabada ku sameeyay iyadoo 24 saac ay la tijaabiyay ceelkan riigaana biyihiisu ayna isdhimin bulshada ku dhaqan degmada Goljonona ay aad u soo dhaweynayso ceelkan riiga ah ee muddada kooban xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu ugu hirgeliyay waxaan u mahad celinayaa hadii la dhaho xukuumadda deegaanka Soomaalida midda kale waxaan u hambalyeeynaa ciidamada New Booliska ee na soo gaarsiiyay biyahan iyo nimcadan iyo farxadda intaan la eg nabad hadaan lahaynin lama helaan bay ka dhigan tahay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa meeshay joogaanba ayaan ku salaamayaa baahidii hore in biyaha u qabnayna lamaba soo koobi karo biyuhuna biyo macaan oo hadda dadka aad iyo aad ugu filaado macaan baa biyo badanna hadda way ka soo baxeen oo biyihii aan rabnay biyo nagu filaan hayay noqotay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa maanta farxadda lama soo koobi karo meeshan taalla runtii waxaan ka cabaynay laasa yar baan ka cabaynay maantana dee waa la arkaa geeli dadkii adhigi xitaaladii inay ka oonbaxayso awoodda ay u dhacayaan iyo nidaamka iyo maaragtay sida yihiin waa biyo nagu filan 100% biyo nagu filan oo badii ah oo aad iyo aad u macaan oo tayo leh ayaana loo bixiyay sidaa darteed aad iyo aad baan u faraxsanahay faraxan naga wax la koobi kara maaha wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha mudane Cabdixaliim Axmed ayaa isaguna sidoo kale tilmaamaya in ceelkani wax way ka bedeli doono baahida dhinaca biyaha in degmada Goljono oo muddo badan biyo laga waayay lagu guuleysto in laga qodo ceel aan waxba isdhimin sidaa darteed waxa farxad noo ah in aan maanta ka qayb galno tijaabinta ceelka laga qoday degmada Goljono oo ay qoday shirkadda Rabaax ay ku guuleysatay kusimaha gudoomiyaha degmada Goljono ayaa soo dhaweeyay ceelka riiga ee xafiisku muddada kooban uu hirgeliyay isagoo sidoo kalena tilmaamaya in ceelkani wax weyn ka bedelayo haraadka dadkii adduunyaduba ay u qabeen dhinaca biyaha tusaalena uu yahay ka jawaabida su'aalaha horumarineed ee bulshada maanta biyahan aan shirradayna aan aragnay waa biyo macaan oo imika tijaabadiisu ilaa xalay way socdeen marka waxaa farxad noo ah ballanqaadkii xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliyeed ee ahaa biyo macaan in la gaarsiiyo oo maanta xaqiiqo ahaan dab noqday waan u mahad celinaynaa xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ayaa inta badan hirgeliyay qorshihii u dejisnaa sanadkan ay ku qotomay dhinaca qodista ceelasha iyadoo intooda badanna la soo gabagabeeyay inta dhiman waqti xaadirkan ay ku dhow yihiin gabagabo waxaana xasuus mudan in goobihii ugu daraa ee oomanaha ee Goljono laga hida iyo xamaro oo ku guuleystay in ceel riigaga uu ka hirgeliyo dadkii adduunyaduna si habsami leh uga faa'iideysanayaan ceelashan kala duwan ee riigaga ee xafiiska horumarinta kheyraadka biyuhu muddada kooban uu ugu hirgeliyay maamulka gobolka Erer iyo kan degmada Fiiq ayaa kulan ku saabsan dardargelinta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmadaas Fiiq faafaynta warkana waxa inoo soo diray wariyahina gobolka Erer wariye Cabdikaafi Axmed Wali kulan wada tashi ah oo ay ka soo qayb galeen shacabka magaalada Fiiq maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo qurba joogta u dhalatay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Erer oo booqasho hawleed ku gaadhay gobolkaasi ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee magaalada Fiiq kulankan oo ay hogaaminayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Erer oo ay wehelinayeen maamulka degmada Fiiq ayaa waxay ujeedada kulankani ahayd dardargelinta howlaha horumarineed waxaana ka soo qayb galay shacabka magaalada Fiiq odayaasha degmooyinka Xamaro iyo Qubi ee gobolka Erer iyo qurba joogta u dhalatay gobolka Erer ee ka kala timid dunida dacaladeed oo dhan waxaana ugu horeeyay furitaankii kulankan ka hadlay ujeedada kulankan looga gol leeyahay gudoomiyaha gobolka Erer mudane Axmed Aadan Axmed shirkan ujeedadiisa waxa weeye maanta waan u dhannahay
hadday noqon lahayd odayaashii waxgaradka hooyooyinka dhammaan qaybaha kala duwan ee waxa weeye shacabka gobolka Erar iyo qurba joogti Erar shalay maxay ahayd maanta xagee la maraya shalay maxaa nabadgelyada xageen ka maraynay horumar miyuu jiray maanta si xageen maraynaa xageen higsanayna oo u soconaa in la xuso waxa weeye mar kasta waa laga maarmaan maanta shirkan waxaan halkan kaga hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo deegaankeena dhammaan waan u wada joognaa qurbaha joogtay ee dhibaatada halka looga sheegay ilaa deegaanka dhibaatadaas ka jirta ka jirta lalaha dadkii dhibaatada lagu sheegay oo maanta nabadda haystaan iyo caafimaadka haystaan halkan fadhi inaan marka ka wada hadalno shalay maxaan ahayn maantana xageesa u soconnaa in laga wada hadlan baa muhiim ah sidoo kalena odayaasha ka kala yimid degmooyinka Xamaro iyo Qubi ee gobolka Erar iyo shacabka degmada Fiiqe ayaa ka xog warramay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray gobolka Erar iyo horumarka baaxadda ballaaran ee uu xilli xaadirkan ku naaloonaya shacabka ku dhaqan gobolkan iyo waxyaabihii keenay waxaan horay u soo maray dhibaatooyin aad u fara badan oo waxaan ku yiraahdaa dhan kastaba taabanaya xagga nabadgelyada ha noqoto xagga horumarka ha noqoto xagga yacni ma taqaanaa maxaan ku yiraahdaa horumarka dhammaantiiba biyaha caafimaadka iyo wixii kale la midaba waxaad aragtaan isgaarsiintii oo chiefka lagu hadlayo aad aragtaan waxaa kaloo aragtaan korontadii oo daily ah maalin iyo habeen korontadii oo maalin iyo habeen aad aragtaan waa waxa ilaahay lagu mahadiyo dhankoodana qurba joogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan gobolka Erar ee ka kala timid dunida dacaladeeda ee boqoshada hawleed ee ku yimid gobolka Erar oo u riyaaqay horumarka dhinacyada ballaaran ee uu sanadihii la soo dhaafay ku tallaabsaday gobolka Erar ayaa waxay hoosta ka xariiqeen inay kaalin mugle dhankooda ka qaadan hayaan dhamaystirka hawlaha horumarineed ee laga wado gobolkaasi waxa weeyaan horumar baynu u soconaynaa waxaan leeyahay oo anigu fiiq gobolkan Erar leeyahay aad iyo aad baad horumarteen boqolkiiba boqol baad horumarteen haddaanu nahay qurba joogtii u dhalatay gobolka Erar kolley mashaariic fara badan baan soo marnay waxaanu tagnay degmada Xamaro waxaan la kulannay biyagelin ceel weyn oo biyo macaan laga qoday ceelkaasoon biyihiisii markaan dhadhaminay biyaada la moodo maxay ahayd kuwa Yurubtaan ka cabno xareeda kaba siiba macaanba marka aad baan ugu farxnay waxaan kolka kadib socdaal dheer ku gaarnay degmadii Wangay waxaan halka ku soo aragnay mashaariic fara badan ee dawladda ay ka hirgelisay sida buundadii ay ku meel gaarka ahayd iyo tii weyneed oo boqolkiiba 80 la dhameystiray marka haddaan nahay qurba joogta u dhalatay maxamed caydiid wuu bilaabay wada aragtaan haddana annaguna kuwa kale aan bilaabaynaa waan u soo soconnaa kuwa kalena waxaan leenahay soo dhawaada wadankiina waa nabad uu idin baahan yahay waa meeshii aad xuduntiina ku aasnayd waa meeshii aan cidna aadin dhahaynaya madow baa tahay ma indha yar baa tahay xagee tahay aan cidna ku dhahaynin waa meel aad dadkiina aad ku simantii weeyaan soo dhawaadan leena qurba joogta kale fariintaas aan u diraynaa ama waan yaabnay maanta markii la geeyay maxay tahay hospitaalka waxyaalaha anaga lacagna looga qaado idinka fariidin ah oo waliba dheeraada markuu doctorkii noo waxayna wuxuu yiri iska dhaaf gabadha dhalaysee gabadha islaanta kale ama qof kale la socda xataa meesha lagu hayaa lacag baa lagu siiyaa adduunka meel ka socota waxaas ma jiraan annaga hadduu ilmo noo dhalanayo lacag baa nalaga qaadaa madaxu hadduu ku xanuun lacag baa laga qaadi gabagabadii kulankan ayaa waxaa la isla qaatay in hal meel looga soo wada jeedsado dhamaystirka hawlaha horumarineed ee laga wado guud ahaanba gobolka Erar waxayna qurba joogtu sheegeen inay dhankooda kaalin mugle ka qaadan hayaan dhamaystirka hawlaha horumarineed ee ka socda gobolkaasi Cabdikaafi Axmed Weli telefishinka caalamiga ee ESTV magaalada Fiiq tababar ku saabsanaa qaabkii loo xakameyn lahaa caadooyinkan xun ayaa loo qabtay xubno laga soo kala xulay tuulooyinka hoos yimaadaha degmada Shilaabo faafahinta warkani waxa inoo soo diyaariyay wariye Maxamed Cali tababarkan oo ku saabsanaa ka hortag caadooyinka xun iyo dhaqanada xun ee sida gudniinka fircooniga ah iyo guurka qasabka ah ee lagula kaco haweenka ayaa waxaa soo diyaariyay xafiiska arrimaha haweenka degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxi xubnaha tababarkan qaadanayay ayaa laga soo kala xulay dhammaan qabalayaasha hoos yimaada degmada Shilaabo kuwaasi
oo loogu talagalay in ay si cad uga howlgalaan isla markaana ay kahortag ku sameeyaan sida ay u joojin lahaayeen dhaqanada xun iyo caadooyinkan soo jireenka ah ee lagula kici jiray haweenka. Gudoomiyaha maamulka degmada Shilaabo Mudane Cabdifataax Shukri oo furay tababarkan ayaa ka soo qaybgalayaasha iyo waliba ka faa'iideystayaasha kula dardaarmay inay dhaqan galiyaan inta socdo tababarkan looga hortagayo dhaqanada xun iyo caadooyinka soo jireenka. Dhinaca kale madaxa arrimaha haweenka degmada Shilaabo iyo hogaanka nabadgelyada iyo maamulka cadaaladda degmada Shilaabo oo dhankooda ka hadlay isla markaana kula dardaarmay ka faa'iideystayaasha tababarkan ay qaadanaya ayaa tilmaamay in caqabad walba oo ka hor timaada ay hay'adaha dawladda goobta ay ku sugan yihiin ay kala shaqeynayaan isla markaana tilaabo cad laga qaadayo. Tababarkan ayaa markii labaad ka dhacaya gudaha degmada Shilaabo kaasi oo loo qabtay ururada qaybaha bulshada ay ka kooban yihiin kuwaasi oo laga soo kala xuray xaafadaha iyo qabalayaasha ay ka kooban tahay degmada Shilaabo. وهاجاك داوديال إمكان أينو جلعنا قضبة كلا إنك سوق على ذلك جودهيسا حفيز كعافمات كمجال أدس أباه أيها وده دلالو لوحة كمان يو عذرة كدشان نظافة الرضا ففاين توركني أينو طلبنا داوديال wasaaradda caafimaadka ee magaalada Addis Ababa ayaa wada dadaalo lagu xakameeyo xanuunada ka dhalan kara nadaafad la'aanta maadaama waqtiga hadda lagu jiro uu yahay xilli roobaad. Haddaba madaxa xafiiska caafimaadka ee magaalada Addis Ababa Mudane Girma Ashnaafi oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in ay laga maarmaan tahay in laga digtoonaado xanuunada ka dhasha nadaafad darrada maadaama dhawaan magaalada Addis Ababa lagu arkay xanuuno wata shuban iyo matag gaar ahaan goobaha ay biyuhu maraan ama ay biyuhu fariistaan. Wuxuuna mas'uulka intaas ku daray in xarumaha kala duwan iyo goobaha kala duwan ay cuntooyinka lagu sameeyo gaar ahaan goobaha laga helo cuntooyinka aan bislaanin oo inta badan ka cunteeya dadka xoogsatada ah ee nolol maalmeedkeeda la tacaalaya waana meelaha ilaa hadda aan si fiican lagu dabargooninin xanuunadaasi sida ay warbixintu sheegayso. sidaas darteed goobahaasi iyo kuwa kaleba waa muhiim in xoog la saaro sida loo xakameyn lahaay wax kasta oo ka iman kara cudurradaasi. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afeerinaa warkii naga soo gaaray waqti xaadirkan deegaanka iyo dalka gudihiisa waxaana si toos ah idin socodsiinayay anigoo ah Axmed Ibrahim Axmed aniga asxaabta igala qayb qaadatay timinta warka dhamaanteen isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.